وين ogolaataa isbeddelka waqtiga libaaxuba isagoo ka taliya kaynta ayuu itaal gabaa hay cosas que no te dije que todavía me duele wax walba aad jeclayd markii aad yarayd maanta sidii kuma tihid oo marxaladii hore ma joogtid Ramos oo maraha difaaca dunida ugu wanaagsan ayaa soo saaray hees ugu sharaxayo waayihii uu soo maray hay cosas que no te dije inkastoo heesta ku ammaanay kooxda Real Madrid isagoo ku tilmaamay mid ka mid ah quwadaha kubadda cagta ee adduunka haddana waxa eriyadiisii ku jiray qaabka cimrigaagu u jaangoynaya mustaqbalkaaga isagoo tilmaamay markii daadiisu weynaatay inay ka maarantay kooxdu Ramos maanta waxa uu jiraa 40 sano waxa uu 11 jeer ka mid noqday shaxda dunida ugu wanaagsan markii ay soo dhamaatay waayihiisii kubadda cagtuna maanta waxa uu rabaa inuu ka mid noqdo fanaaniinta dunida wuxuuna soo saaray heestiisii ugu horeysay sida la sheegana xiriir ayaa ka dhaxaya fanka iyo ciyaaraha waqtigooda ugu badan waxay ku qaataan heesaha iyo muusiga hisimaha daruurtiyo marubuuxa isku hora nimoy lagu xasuusta adduunyoy